kamid ayaa muqdisho soo gaaray waxaana kamid dadka soo gaaray madaxweynaha maamulka Puntland Cabduli Maxamed Ali Gaas sidaas oo kale hore waxa halkan ugu sugnaa sida keenin helayso xubno maamul goboleedyo hoggaan u ah oo kamid yahay madaxweynaha Hirshabelle Abdi Xas waa ninka la yiraahdo Cabduli Maxamed Ali Gaas ayaa ka soo degay dambe maanta gegada caalamiga Aadan Cabdul Ismaan Aadan Cad ee magaalada Muqdisho waxaana halkaas ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa xildhibaano iyo siyaasiyiin labada gole ee aqalka sare iyo aqalka hoose ka tirsan oo Puntland ka soo jeeda ayaa sidoo kale kamid ah dadkii airportka ugu hortagay ee soo dhaweeyay Dixor Gaas Cabduli Maxamed Ali Gaas waxa la socday ciidan gaar ah oo staff oo ah oo isaga ilaalinaya kubaas oo garoonka ka soo raacay oo Puntland kala yimid waxaana caawa kula hoyanayaan qasriga oo ka degay magaalada Muqdisho oo guriga uu ka degay magaalada Muqdisho taas oo hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada ay ku kulmaan caawa noqotay waxyaabaha laga hadli doono biri iyo saacadaha kale ee soo aadanba kulanka waxa kamid ah in madaxda maamul goboleedyada ay ka qayb galin shirka ka dhici doona magaalada London bisha May ee soo socota kulankaas oo looga hadli doono arrimaha Soomaaliya waxa ka qayb gali doona xubno ka socda dawladda dhexe ee Soomaaliya oo kaliya balse waxa jiri doona kulamo madaxda dawladda ee wafdiga ah ee London u dirsan doonto ee la yeelan doonaan madaxda maamul goboleedyada talana ay ku yeelan doonaan waxyaabaha ay dawladda la hortagi doonto shirka bisha May ka dhici doona UK sidoo kale xog hesha idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in madaxda maamul goboleedyada laga hadli doono heshiisyada caalamiga oo ay la galayaan dawladaha kale ee dalka Soomaaliya xiriirka dawlad leh iyo arrimaha ciidanka in dawladda dhexe ee Soomaaliya loo madax banaaneeyo iyo amniga guud ee dalka Soomaaliya qodobadaas ayaa kamid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee madaxda dawladda Soomaaliya kulanka ay ugu yeereen hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya lagu soo hadal qaadi doono waxa si adag looga hadli doonaa arrinta ciidamada Soomaaliya oo la qalabeyn doono isla markaana dawladdu ay ku rajo weyntahay in laga saaro talada maamul goboleedyada ay ku leeyihiin ciidamada Soomaaliya oo ay dawladda dhexe ee Soomaaliya iyada ay maamusho heshiisyada caalamiga ee dawladaha kale ee la galayaan maamul goboleedyada inay joojiyaan iyo in aysan ka qayb galin shirarka caalamiga ee ayaha Soomaaliya looga hadlayo oo ay baxaan oo kaliya madaxda dawladda halka ay weydmato KNN Muqdisho